Maraykanka iyo Israa'iil ayaa weeraro ku qaaday goobo badan oo ku yaala Iiraan, oo ay ku jirto caasimadda waddankaasi ee Tehraan. Weeraradaas oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku tilmaamay howlgallo dagaal oo waaweyn. Weeraradan ayaa yimid xilli ay socdeen wadaxaajoodyo u dhexeeyay Maraykanka iyo Iiraan oo ku saabsan barnaamijyada nukliyeerka iyo gantaalada balaastigga ah ee Iiraan, kadib toddobaadyo hanjabaadyo isa soo taraya oo ka imaanaya Trump, iyo 8 bilood kadib markii Maraykanka iyo Israa'iil ay Iiraan la galeen dagaal socday 12 maalmood. Qiyaastii 3:27 subaxnimo maalinnimadii Sabtida, wakaaladda wararka ee Fars ee Iiraan ayaa soo warisay qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacaya caasimadda Tehraan, halka muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayeen qiiq ka kacaya meelo kala duwan oo magaalada ka mid ah. Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday inay gantaalo ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalkaasi Iiraan. Sarkaal Maraykan ah ayaana u sheegay Al Jazeera in weeraradaas lagu fuliyay howlgal militari oo wadajir ah oo ay iska kaashanayeen Israa'iil iyo Maraykanka. Toddobaadyadii u dambeeyay, Washington waxay gobolka ku ururinaysay tiro badan oo diyaaradaha dagaalka ah iyo maraakiib dagaal, taasoo noqotay isu ururintii militari ee ugu weyneed halkaas tan iyo dagaalkii Ciraaq. Trump ayaa howlgalka ku tilmaamay mid ballaaran oo weli socda. Wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa markii dambe sheegtay in howlgalka loo bixiyay Operation Epic Fury, taasoo noqotay bayaankii ugu horreeyay ee si rasmi ah uga soo baxa militariga Maraykanka tan iyo bilowgii weerarka wadajirka ah ee Maraykanka iyo Israa'iil. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Fars, gantaalo dhowr ah ayaa ku dhacay waddada jaamacadda iyo aagga Jamhuuri ee Tehraan. Sidoo kale, meel u dhow xarunta ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa la duqeeyay. Weeraradu waxay inta badan ka dhaceen caasimadda Iiraan iyo meel u dhow xafiisyada hogaamiyaha sare ee Ayatollah Cali Khamenei. Isagoo ku dhawaaqaya howlgallo dagaal oo waaweyn, Trump ayaa sheegay in ujeedada dagaalka Maraykanka ee Iiraan ay tahay in la burburiyo gantaaladooda lana baabi'iyo warshadaha gantaalada gebi ahaanba. Waxaan baabi'in doonaa ciidankooda badda, ayuu Trump ku daray. Maraykanka ayaa bilaabay howlgallo dagaal oo waaweyn gudaha dalkaasi Iiraan, kuwaasoo lagu tilmaamay dagaal ballaaran oo weli socda. Ujeedada la sheegay waa in la tirtiro waxa Washington ku tilmaamtay hanjabaado degdeg ah oo ka imaanaya dowladda Iiraan. Trump wuxuu sheegay in ujeedooyinka militari ee ololaha ay ka mid yihiin burburinta awoodda gantaalada ee Iiraan, beegsiga ciidanka badda ee Iiraan, carqaladaynta kooxaha hubeysan ee ay Iiraan taageerto ee ku sugan gobolka, hubinta in Iiraan aysan helin hub nukliyeer ah. Wuxuu sidoo kale fariin digniin iyo ballanqaad isugu jira u diray ciidamada Iiraan. Haddii ay hubka dhigaan, Trump wuxuu sheegay inuu damaanad qaadayo cafis, laakiin haddii aysan sidaas yeelin, wuxuu uga digay inay la kulmi doonaan geeri hubaal ah. Iiraan ayaa ka argudatay weerarkaas iyadoo markii hore gantaalo ku riday dhanka Israa'iil, sida ay sheegeen militariga Israa'iil. Digniino weerar cirka ah ayaa ka yeeray qaybo badan oo dalka ka mid ah, waxaana qaraxyo laga soo sheegay waqooyiga Israa'iil. Laakiin wax yar kadib, ciidamada Iiraan ayaa gantaalo ku weeraray goobo dhowr ah oo la xiriira howlgallada militari ee Maraykanka ee gobolka, oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada Maraykanka ee bariga iyo xarunta ciidanka badda ee US-50 Fleet ee dalka Bahrain. Qaraxyo ayaa sidoo kale laga maqlay caasimadda Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya. Iiraan waxay ku hanjabtay jawaab burburin ah, waxayna sheegtay in maamulka Yuhuudda iyo Maraykanku dagaalka ay bilaabeen, balse dhammaadkiisa ay Iiraan jaangoynayso. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa maraakiibta u soo diray fariimo raadiyo ah oo ku leh inaysan wax markab ah loo oggolayn inuu ka gudbo gacanka Hormuz, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan howlgalka badda ee Midowga Yurub. Waxaana tilmaamahaasi lagu sheegay in la diiday in maraakiibta ay mari karaan marinbiyoodkaas istiraatiijiga ah. In ka badan $500 bilyan oo saliid iyo gaas ah ayaa sanad kasta mara marinbiyoodkaas, taasoo ka dhigaysa dhaqaalaha caalamka mid si weyn ugu nugul qalqal ama carqalad kasta oo ku timaada halkaas. Dhanka kale, warbaahinta dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay in hogaamiyihii guud Ayatollah Cali Khamenei lagu dilay xafiiskiisa weeraro ay fuliyeen Israa'iil iyo Maraykanka, kadib markii warar hore oo ka soo baxay saraakiisha Maraykanka iyo Israa'iil ay sheegeen in la dilay hogaamiyahan. Xaqiijinta Axadda timid ayaa daba socotay kadib markii wakaaladda wararka ee Tasniim iyo Meher ee Iiraan ay markii hore sheegeen in Khamenei uu weli adkaysi iyo go'aano ku maamulayo goobta dagaalka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa qoraal uu ku daabacay baraha Truth Social horraantii maalintaas ku sheegay
in Khomeini oo 86 sano jir ah lagu dilo weeraro wadajir ah oo ay fuliyeen Maraykanka iyo Israa'iil, kuwaas oo bilowday subaxnimadii Sabtida. Ma uusan awoodin inuu ka baxsado sirdoonkeena iyo nidaamyadeena raadraaca ee aadka u horumarsan. Annagoo si dhow ula shaqaynayna Israa'iil, mana jirin wax isagu ama hogaamiyeyaasha kale ee lala dilay samayn kareen, ayuu Trump qoray. Ayatollah Cali Khomeini oo sanado badan maamulayay dalka Iiraan, isagoo ahaa hogaamiyaha ugu sarreeya isla markaana doonayay inuu dalka ka dhigo quwad goboleed awood leh, kaasoo horseeday iska horimaad uu la galo maamulka Yuhuudda, Israa'iil iyo Maraykanka sababo la xiriira doonista barnaamijka nukliyeerka, ayaa hadda la xaqiijiyay geeridiisa. Khomeini wuxuu si weyn dib ugu qaabeeyey Jamhuuriyadda Islaamiga ah tan iyo markii uu hoggaanka la wareegay sannadii 1989 kadib geeridii Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini wuxuu ahaa hogaamiye fikirkiisu kulul yahay oo karismaatig ah, kaasoo hogaaminayay afgembigii lagu riday shaahii ama boqorkii dalka, kuna aasaasay nidaam ay wadaadada Shiicada Muslimiinta ahi ku xukumaan, iyagoo loo xil saaray faafinta daahirnimada diinta. Dagaalka Bariga Dhexe ayaa u muuqda mid sii adkaanaya iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa uu sii yeelanayo weji kale. Iiraan waxay hadda adeegsanaysaa si kasta oo ay cadowgeeda ku xanuujin karto, iyadoo gobolka Bariga Dhexe u beddelaysa meel dabka dagaalku ka wada shidan yahay.